واجد Soomaali maanta ka tilmaameen marka qofka kasta hadii boos uu qalmin beelahay wax kasta waa noo hagaagi lahay waayahay dhanka kale maxaa u diiday marka madaxda maamul goboleedka dalka Puntland iyo Jubbaland madaxdooda waxay matalaan markaas shacabkooda matalaan runtii waana aad daro ah in wadankii la kala qaybinaa oo yuhuud la soo dejinaa inay qaali ka yihiin waxayna tusinaysaa macnaha sheegashada ay sheegi jireen sideedan iyo ikhmidooda inay Soomaali ku daayinayeen kala mustaqbal aditayna ay ku hayeen Soomaaliya loo baqaa maanta Soomaaliya inuu soo doonay ay ka aamuseen wax iska daro ah waxa ilaahay nimankaas waa niman aan Soomaali u socon kaasatan labadaas nin waxa ay wadaan iyo waa la ogaaday waa niman ka xun maamulka waqooyi bari waxaan aqsan shacabkoodan laakiin shacabka meesha ku nool fiican ay u ambaareen bannaanbaxay ayay ka dhigeen inkastoo Jubbaland inta ugu badan aysan ka talin maamulka Jubbaland oo Kismaayo uu yahay laakiin shacabka Puntland waa aragnay oo bannaanbaxay barnaamijkaas marka laakiin asleenahay waa niman dana kala wax kala biraan ka shaqeeyaan marka mana shuraawayso mana shaqeynayso waayahay saakay bannaanbaxay waaweyn ayaa waxa ay ka socdaan magaalada Muqdisho halka gobolada kalena marka la qaban qaabinay sidoo oo aragtay adiga bannaanbaxyada saakay magaalada Muqdisho bannaanbaxyadaas aad iyo aad u soo dhaweynaa daalan shacabka Soomaaliyeed qaadna shacabka Puntland sababta tahay bannaanbaxyadu ay ka turjumayaan waxa ay ku dhaqmeen nimankaas naanu anagu aan shaqo ku lahayd يعني مرنا مليون كرم يقول على كذا الصومال الوقت كريم نحاول أنا أنتظر نسيت إنه خدت جمال واحد عادي كنت أنا حد يشجع واجد نتنياهو وعدنا هاي دي يوم أو سن حتى مرة كريم هو أو كل واحد دي كوزي كلامه كلا إله حتى هتلر يقول في واحد صوت حتى أوغان عن دربه أنا جاي إسلام تهين قرآن كلا النوم شادي جدنا عن إنسان لامعين بدل وعاء كذا لسود ويسن وما أنا كتبت ثلاث سكين إنه عن تبع اسم إلهي كل بادي وضوء عن المسلمين يكون العرب ويهود النصارى ما كمان تنتعلم كوي توقع شيء ممكن هرجس الجو أول هرجس ما يعرف ليش على ملار الصومالي عم السلام ركع إذا صار كذا أو بنام بحلا دقة آدي آلة تاجر سناي آدي آلة عم بتح سناي أعرف الله بعناي سوى بنام بحنا وشعور صاروا من جديد آدي في عنده ويا وجدد هو إنه كله يعني نتياو محيط ليكرا ما دام معمول كم إذا معمولات الدولة الفدرال كالصومالية أو أقونص الدولة مدح بنان يمكن ده فرق ساعة قدام بيتي وبعدين تعامل يمد جداد تنقيه الجديد وكل يعني نتناول إنه شمال عن قنصوة وبعدين كألف تجي بيتي عن قلت مع محلي عن البوليتيكال استراتيجي وتقرأ سياسات ماشي صغار المصلي كدفته كود لان تواجد من وطننا عن إسرائيل أو طريقة دحاء إيران اليمن ويسجين اليمن أو كدقاء مركز سومالان نكي دوستين إداين ما سواي يعني ماشي وكان قر نالسي عنا أو هذا معقبل حافظ هذا إنه يضر وبلا نالك إن حافظ هذا سور أو إحنا سور قلي مركز أصلا نكي حاسقر سابتيدي وكل خاص عندي فوجين ولا بس حرير اللي أكان حكم صحيح والواقع صناعي وحاول عن نارتي كانوا دعمها لقلت ذكراني وياي naga kale maxaa u diidaasday kartaa in marka maamulka waqooyi bari Soomaaliya si gaar ah Somaliland kala hadlaan hadii ay u baahan yihiin aqoonsi dawladda federaalka ee Soomaaliya mal maxaa u diiday in marka dabcan ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil midda hadii naga yaabeen suurtagalkan waa sheegay waa ka hadlayay safarkan territorial integrity Soomaaliya aqoonsanayeen to Soomaalidana wixii ay dhaxyaalay ay heshiiyeen
لكن يقدر لي الدنيا والسياسيين كاسو حقوقات باعين يمكن مرنا إنتاجيان إعلان الحين قاعدين أخواني حتى الرمان أخواني ورد شغل ماشي وجود سومالا برتسل كلين دراسة معها وغوي قباد وغوي بري مركا أخواني حتى حساران واحد هاتين دولة الصومالي هذا الحدود الجران جنس الجديد صامر عن نظام أخواني دولة كذا ولا يقانا الدين كشرعي ولا مرة لكن عقلها يسبني فتح سنة كل مشان سنة إذا كل بين شيء جاي وحيرا مركز صوتنا صنع عندنا بين إني بس كثير لاقل عن الشيء اللي يرجع كثير كمان ما ظنحان مع السلام ولا مود يسكت عام لا شخص بنشتت لان أنا وضع عبرنا إنه ديار اللي حرمة وحلمنا سماع النظام فدرالة كات هذه جناي نظام في حال في أنتوا جاهز سماع هذا نظام فدرالة وخفض بعض في كوسن في شيء سو معمولنا لكن الرماد بدي عشان نجي أنا لو شيء تصور فقرا أي دولة نحن معمولة